السلام عليكم صاحب بيال soo dhawaada muuqaal cusub. muuqaalkan waxaynu si faahfaahsan ugu sharaxi doonaa shirkadda Fund Next oo soo kordhisay akoon cusub. waxaynu ogeyn saddex akoon oo kala duwan ayay shirkaddani ku hawlgeli jirtay. mid cusub ay soo kordhisay xaqiiqatanna waa akoon aynu badan wada sugaynay oo aynu shirkado badan ka soo weynay. falilahi alxamdu mar haddii Fund Next ay akoonkan noo soo kordhisay. akoonkan waa maxay? akoonkani waxa weeye mid aan challenge la maraynin. akoon real ah aad iibsanaysid, faa'iido ka samaynaysid, faa'iidada ka samaysid aad kala baxaysid. wax target aan lahayn, wax challenge aan lahayn. awal waxaynu ogeyn shirkadda inay saddex akoon bixin jirtay, mid hal face, mid laba face iyo mid stellar lite loo oran jiray. laakiin hadda waxay ku soo kordhisay stellar instant. instant macnaheedu waxa weeye no challenge. akoonkan maanta soo kordhisay isla maanta Telegram-ka waan kula soo wadaagnay. Telegram-kana haddaad la socotid aad ku xidhan tahay. haddii aad ku xidhnayna linkigiisu waa ka description-ka yaala. kusoo bir Sum Invest. akoonka ay shirkaddani bixiso kan stellar-ka baa lagu soo kordhiyey. halkee baad kala soo soconaysaa markaas? Telegram-keena haddii aad ku jirtid waxaad ku jiraysaa linkigan ama mar kastaba linkiyada hoos yaala Telegram-ka Sum Invest yaala kaas oo tilmaamaya Fund Next. kan maxaa ku qoran halkan iska diiwaan geli Fund Next kaasaad soo gujinaysaa. markaad klik siisid wuxuu keeni doonaa daaqad sidan oo kale ah. daaqadan ayaad hoos soo raaci doontaa. hoos marka usoo raacdid waxaad iman doontaa afartan akoon. kan ugu dambeeya ee haddana new ay ku qoran tahay maanta la soo kordhiyey stellar instant baa leeyahay. waa akoon no challenge ah. wuxuu u qaybsamaa saddex nooc. mid 5,000 ah, mid 10,000 ah iyo mid 20,000 ah. ruleskooduna waa ka xaggan hoose nagu cad. ruleskooda by one baan ku taagi doonaa. waa rules aad u fudud aadna aan uga helay shirkadana aynu rajaynayno in lacag badan aynu ka samayno maadaama challenge-gii akoon bila challenge aan lagu soo kordhiyey. halkan maxaa ku qoran maximum limit. waxa weeye maximum loss limit waa limitka ugu sarreeya ama ugu weyn ee lagu ogol yahay inaad khasaartid. akoonka waxa lagu ogol yahay inaad khasaartid 6%. akoonka 5,000 ah waxay noqonaysaa 300, kan 10,000 waxay noqonaysaa 600, kan 20,000 waxay noqonaysaa 1,200. 6%. haye haddaynu halkan u soconno daily loss maalintii maxaa la ogol yahay inaad khasaartid laguma xadidin. macnaheedu waxa weeye 5% haddaad maalinkaa khasaartid xataa ama 5.9% xataa haddaad khasaartid akoonkaaga lagama xidhayo. macnaheedu waxa weeye akoonkan 20,000 haddaad khasaartid 1,199 haddaad khasaartid lagama xidhayo. daily loss-ka waa lagu sii daayay. maximum loss-ka un baa xadidan. haye down the round type maxaa looga jeedaa? waxaa looga jeedaa khasaarahu nooc uu yahay. yani static iyo trailing ayaa la kayaadaa. kan trailing bay doorteen. trailing waxa weeye nooca wanaagsan ee ah markasta aad faa'iido ku dartid waa markasta oo maximum loss-kaagu uu sii kordhayo uu sii weynaanayo weeyaan. tusaale ahaan akoonka 20,000 ah haddii aad ku dartid 5,000 haddii aad ku dartay macnaheedu waxa weeye 11% ayuu khasaaraha guud noqonaya. 10% hadda khasaartay xataa akoonkaaga laga xiri maayo maadaama ah adaa kordhistay. marka trailing weeye noociisu. newska ma lagu ogol yahay? haa, saddexda akoon baa lagu ogol yahay. weekendiga inaad haysatid ma lagu ogol yahay? haa, trading day haddaad haysatid ama swing trader aad tahay waad haysan kartaa. profit split-ka ilaa 80% ma jirto shirkad ay intaas ay gaadho. ilaa 80% baa lagu siinaya. buy out-ka waa markaad dalbatidun. wax ma jirto la yiraahdo profit target 10%, 5% waxaas ma jiraan. faa'iidada ka samaysid on demand weeyaan. markaad dalbatidun kaasaas lagu siinaya. refundable fee maya. haddaba akoonkan uu yahay akoon real ah lagu dhiibay wax refundable fee ma laha. fiigaaga lagu soo celin maayo. macnaheedu waxa weeye marka faa'iidada samaysid baa lagu soo celinaya. akoonka upgrading baa lagu samaynayaa. waxaa lagu darayaa 10% haddaad ku dartid oo kale
lagu laban laabaya lagu saddex laabaya saas kugu soconaysa ka saaxiibayaal waxaan rajeynayaa in aad muuqaalkana dhammaysan doontaan sidoo kale aad akoonkan dalban doontaan waa akoon aad iyo aad u faa'iido badan marka hore waxaan isticmaali jirnay kan hal stepka ah kan hal stepka maadaama challenge la marayo akoonka 200 ah kan 100 kuna aynu qaadan jirnay mar haddii 200 ama haddii la marayo challenge face kan bal qaadan kartaa halka face ah haddii aad rabtid akoon aad degdeg lacag uga samaysidna maanta kan baad iibsan kartaa akoonada waaweyn baad qaadan kartaa inkasta akoonada nagu yareeyeen oo 50,000 iyo 100,000 iyo 200,000 nagu wanaagsanaan lahaa laakiin iminka intaas ku bilaabeen 20,000 ugu weyn 20,000 haddaad ka qaadatid faa'iido fiican baad ka samayn kartaa faa'iidadaas la markiina waad la bixi kartaa tusaale ahaan lacagta kaaga baxaysa waxa weeye 780 ayaad gashatay haddii aad 5,000 ka samaysid markii waad la bixi kartaa kana faa'iido lacagtiis waxa weeye 399 kan 5,000 fiigiis waxa weeye 195 run ahaantii waa akoonno aynu badan sugaynay shirkado badan aynu ka raadinay mid bilaa challenge ah maadaama inagu aynu bilaa challenge aynu jeclayn si degdeg ah lacag ku sameeyno aynu kala baxno oo lacagahan challenge-ga laga baxay khasaaroobay 20,000 iyo 10,000 waxaas in lacag riyo lagu bedelno aynu jeclayn saas darteed bay shirkadana nagu soo kordhisay aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa telegramkeena ku soo biira wixii su'aalaad qabtaan ama akoon aad rabtaan in la idila furo ama la idila baasiyaba telegramkeena whatsappka yaala soo guji nagala soo xiriir si degdeg ah kugu jawaabaynaa teamkeena insha Allah teamka lacagaha ugu badan Fundnext ka sameeya Soomaalida ayaan noqonnaa imkana waynu ka sameynaa 10,000 20,000 30,000 rag inta ka sameeya baa jira waxaan rajeynayaa dhamaanteen inaan gacmaha is qabsano ku soo dhawaada muuqaalkan like saar insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.